بسم الله الرحمن الرحيم نبدا وضيال halkaan nagala socotaan waa channelka Shakuri channel daba xubinteena ciyaaraha maanta waxyaabaha ugu waaweyn ee idinayna waxa kamid ah kooxda kubadda cagta ee Man United oo xiisab baan u qabtay ciyaaryahanka reer Napoli Koulibaly iyo waliba inandayaal ka tirsan kooxda kubadda cagta Real Madrid oo la sheegay in xalinta la daawanayeen ciyaartii adkeyd ee u dhaceysay kooxaha kubadda cagta ee reer Ingiriis ee Tottenham Hotspur iyo waliba kooxda kubadda cagta Chelsea sidoo kale waxa la sheegay in kooxda kubadda cagta Bayern Munich xiisab baan u qabto daafaca dambeedka reer Faransiis ee Bavard inuu ku bilaawno xubinteena koobaad inandayaal ka tirsan kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa waxa la sheegay in xalinta la daawanayeen kulankii aadka u adkaa u dhaxeeyay kooxaha reer London ee Chelsea iyo waliba Tottenham Hotspur haddaba waxa la sheegay in inandayaashan inay qiimeynayeen ciyaarta uu soo bandhigo ciyaaryahanka reer Ingiriis iyo waliba inuu ku haboon yahay inuu ka ciyaaro horyaalka dalka Spain kooxda kubadda cagta Man United ayaa la sheegay in xiisab baan u qabto ciyaaryahanka reer Napoli ee Koulibaly haddaba kooxda kubadda cagta Man United ayaa waxay maalmahan ugu dambeeyay aad uga xuntahay daafaca dambe haddaba waxay doonaysaa inay ku adkayso daafaceeda dambe isla markaana soo iibsato ciyaaryahankan Afrikaanka ee maalmahan dambe cunsuriyada aad u baahan la kulmayay sidoo kale kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa la sheegay iyadana inay dalab ka gudbin doonto ciyaaryahanka reer Faransiis ee daafaca dambeedka ka ciyaara ee lagu yaqaano Benjamin Pavard haddaba ciyaaryahankan ayaa waxa uu yahay ciyaaryahan aad uga fiican daafaca dambe waxaana la leeyahay kooxda kubadda cagta Bayern Munich waxay u dhowdahay inay ku guuleyso isla markaana ay ka gudbin doonto lacag aad u fara badan ayaana la filayaa inay ku baxdo soo xirigelinta ciyaaryahankan aad bay u mahadsantihiin daawadayaal waxaa intaa nooga warkayga maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu